shalay 12 January waxaa laga saaray caasimadda dalka Suudaan ee magaaladiisa lagu magacaabo Khartoum kooxdii gooni-goostada ahayd ee RCF. Dowladda Suudaan ayaa la wareegtay ku dhawaad airportkii iyo xarumaha magaalada Khartoum. Madaxweyne Burhan ayaa sanadkii hore la kulmay dagaal isir-sifeyn ah oo kuwaasoo ciidankiisa loo kala qaybiyey. qaybtii loo qaybiyey RCF ahayd markii hore ciidanka Suudaan ayaa damacday inay waddanka kala jaraan kuwaasoo geystay dagaal xun iyo xasuuq shacab rayid ah oo dhiigooda lagu daadiyay guryahooda iyagoo bilaa dambi ah. RCF oo ahayd kooxdii gooni-goostada ahayd ayaa hubiyey saad ka helisay dowladda Imaaraadka taasoo garab u ahayd Imaaraadkuna wuxuu ka lahaa hal ujeedo waxayna u taageerayeen sababta ah inay ka helaan dahabka iyo macdanaha dalkaas. Madaxweyne Burhan ayaa helay caawimaad dalka Sacuudiga kaasoo ka caawiyey dhan badan taageerid ah oo dalal kale caawimaad ayay soo galeen laakiin weli lama xaqiijin. dalka Suudaan 89% waxaa haysta ciidamada dowladda Suudaan, boqolkiiba 11 kaliya ayaa haysta kooxda gooni-goostada ee lagu magacaabo RCF. waa guul weyn ay gaareen ciidamada dalka Suudaan. dagaalka waxaa soo baxay shalay warar dowladda Soomaaliya ee xiriirka u jirtay Imaaraadka taasoo rabtay inay fal xun geysato dalka Soomaaliya ee aanay rabtay burbur dhexdeeda ah ee ka sameeyaan gudaha Soomaaliya. nagu soo biir haddii rabtay muuqaalo badan oo noocan ah insha Allah muuqaalo badan macluumaad badan baa soo wadnaa nagu soo biir subscribe-ta like noo taabo waa noo dhiirigelin walaalkayo. Thank you.